السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيب هو عبد الله علي. waxaan ka shaqeeyaa caafimaadka guud ee degmada Rice County ama Rice County Public Health. waalid ahaan waxaa laga yaabaa iskuulka Fairbolt inuu idin soo weydiisto inaad ka soo cabirtaan ilmihiina xumada ama qandhada iyo calaamadaha ama astaamaha lagu garto cudurkan faafaha daran ee COVID-19. waxaan halkan idin kala soo hadlayaa inaan idin tuso qaabka looga cabiro ilmaha xumada ama qandhada. marka u horeysa qaado temperature cabirahaaga ama kul cabirahaaga sida loo yaqaan. waxa ugu fiican waxa weeyaan in aad ilmuhu marka uu soo toosay ugu horeysaba aad ka cabirto qandhada. haddii kale sug 30 daqiiqo muddo dhan hadduu ilmuhu ama cunto cunay ama uu cabitaan cabay ama uu soo ciyaaray. sidoo kale haddii aad ilmaha siisay daawada xanuun baabiyaha ama qandhada jabisa sida Tylenolka ama ibuprofenka sug 6 saacadood muddo dhan kadib ka cabir xumada ama qandhada ka cabir si aad u hesho magaranaysa cabirka saxda ah ama qandhada saxda ee ilmaha haysa. markii kadib ilmaha uu diyaar ku noqdo qaado mar kale kuleel cabiraha ay qaado. marka waxaad samaynaysaa dan inta kadib waxaad samaysaa ilmaha carabka hoostiisa u geli isagoo aan qaniinaynin. shid marka hore kadibna carabka hoostiisa geli. ku hay muddo dhan 1 daqiiqo ilaa 2 daqiiqo ilaa uu ka yiraahdo beep. kadib waxaad akhrisaa shaashada yar ee kuleel cabiraha ka akhri temperature-ka. haddii temperature-ku uu noqdo 100.4 Fahrenheit ama 38 Celsius ama in ka badanba ilmahaas waa qandhaysan yahay. waxaanu ku faraynaa ama aanu ku leenahay gee isbitaal si looga soo baaro cudurka faafaha daran ee COVID-19. intaas kadib kuleel cabirahaagii nadiifi ama hagaaji oo dhan adoo isticmaalaya saabuunta ama u isticmaalaya alcohol aad suufka intaad mariso kadibna aad ku nadiifinaysid asaga. sidoo kale aniga maanta waxaan jeclahay inaan isticmaalo calalkan yar oo leh alcohol ama suufkan yar sida adigu u taqaanaba. ku nadiifi adiga oo ka bilaabaya meeshii aad u isticmaashay ama afkiisa hore yarka ah asagoo dhan mari. markii aad nadiifisay kadib haddii caruurtaadu ay ka badan tahay 1 ilmo mid walba oo aad ka cabirta xumada waa inaad nadiifiso qallajiso oo dukaadiso 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo kadibna ilmihii labaad ama kii ka ku xigay aad ku cabirto. sidoo kale haddii ilmuhu uu ka diido ama ay suurtagal noqon weydo inaad ka cabirto carabka hoostiisa waxaad ka cabiri kartaa kilkisha adiga oo ku aadinaya afka temperature cabiraha ama kuleel cabiraha kilkisha dhexdeeda sidii markii hore sidaad yeeshay baadna yeelaysaa oo waad shidaysaa kadibna waad gelinaysaa. waxaad u kaadinaysaa muddo dhan daqiiqad ama 2 waad sugaysaa inta uu ka dhaho beep. marka uu temperature cabiruhu uu beep dhaho waad ka soo saaraysaa. kadib waxaad akhriyaysaa shaashada temperature cabiraha. haddii ay noqoto 99.4 Fahrenheit ama ay noqoto 37.4 oo Celsius ay noqoto macnaha ilmahaas waa xumad baa haysa ama qandho ayaa haysa. sidaa daraaddeed waa inaad ilmahaas waxaan ku faraynaa ilmaha waa inaad geyso xarumaha caafimaadka si looga cabiro xanuunkii faafaha daran ee la dhihi jiray COVID-19.
waxaa kaloon kuugu darayaa kilkisha oo laga cabiraa ilmaha waxay ka yar tahay 1 degree bay ka yar tahay in laga cabiraa afka. marka xusuusnow cudurkan COVID-19 qof kasta oo ku dhacay xumadii ma laha inuusan lahaanin baa laga yaaba, waana sababaha loo raadinayo xanuunada kale oo aan u sameynayno baaritaanka noocaana. waxaan markale ku xusuusinayaa ha iloobin ilmahaaga jeegoodii oo wellnesska waa muhiim bay u tahay caafimaadkooda. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.